السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ku soo marinayaa waraahiyo iyo kelmado ku anfacaya hadii aad tahay qof dhibaatooday kuna dhibaatooday noloshan. waraahiyo ku anfacaya hadii aad tahay qof noloshan kala kulmay caqabado kuna dhibaatooday wadada guusha. insha Allah muuqaalkan waxaan rajaynayaa inuu ku noqdo mid noloshaada wax un ka bedela kuna dhiirigeliyo mar waliba aad qursatid iyo mar waliba aad kaliya jabtid hankii iyo himiladii aad ku taamaysay. halkan waa kanaalka Garwaaqsi oo aad ku barneedeen gudbinta mowduucyo ku tacalluqda nolosheena iyo xaqiiqooyin kala duwan. waxaana idin soo gudbinaya walaalkiina Cumar Maxamed. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. marnaba nafsadaada ha u ogolaanin in la dhaho waxaad tahay faashil, yacni waxaad tahay mid fashilantay. adigu ma tihid mid fashilmay. haddii adigu aad ku guuldareysatid ama aad ku qasaartid arrin, ma ahan inaad aqbasho markii lagu dhaho waad fashilantay. inaad ku guuldareysatid arrin sida waxbarasho ama shaqo iyo inaad ku guuldareysatid isku daygii aad samaysay waa guul adiga kuu gaara. guuldaradaas iyo fashilkaasi waa khibrad aysan kasbanin ayna helin kuwii isku daygii hore ku guulaystay. fashilku waa tijaabo oo aan dhammaanteena ku marayno nolosheena. fashilku wuxuu ka turjumayaa amase uu ka dhigan yahay inaad isku dayday oo aad tijaabisay, sidoo kalena aad heshay awoodda wajahidda iyo qaabilidda mawjadaha nolosha oo ay inta badan dadku wajihi waayeen. mar waliba oo aad isku dayaysid iyo mar waliba aad sare u kacaysid waxaad tahay mid guulaystay. iyo mar waliba aad leedahay dareenka ah inaadan fashilmin, adigu ma tihid mid fashilmay. iska xaqiiji hadafka aad noloshan ka leedahay. ogow hadafka aad leedahay inuu yahay raaligelinta Allah. hadafkaaga yuusan noqon hana ka dhigin raaligelinta dadka. imaamu shaafici wuxuu leeyahay rida nnaasi gaayatun laa tudrak walaysa ila salaamati minhum sabiilu facalayka bimaa yanfacuka falzimhu. raaligelinta dadku waa gaayo ama hadaf aan la gaari karin. ma jirto wado ama wax haddii la sameeyo dadka looga badbaadayo. keliya waxaa lagaa doonayaa samaynta ama qabashada wax adiga ku anfacayo ee laazim qabashada wax adiga ku anfacayo. qaar ka mid a culimada islaamka waxay leeyihiin noloshaada u noolow keliya inaad ilaahay raaligeliso, ihtimaamna ha siinin waxa ay dadka ku dhahayaan. nafsadaadana ha yaraysan, kuna kalsoonow nafsadaada. adigu ma tihid mid fashilmay. qof waliba caalamkan wuxuu u arkayaa sida isaga uu yahay. jaahilka dadkoo dhan wuxuu u arkayaa inay yihiin dad jaahiliin ah. tusaale, markaad qof ka codsato inuu ku aqriyo warqad adigoo soo iloobi ookiyaalahaaga, qofkaasi wuxuu kuu sheegayaa inuu wax aqrin waxna qorin sidaada oo kale. mana oga inaad adigu wax qorayso waxna aqrinayso, keliya aad soo ilowday ookiyaalahaaga. shaqsigaasi wuxuu ku arkay sida uu isaga yahay, wuxuuna ictiqaaday oo uu rumaystay inaad tahay jaahil isaga la mid ah. marka nafsadaada aad u arkaysid inaad guulaysatay, waad guulaysatay, xitaa haddii aad ku dhex sugan tahay marxalad ka soo horjeeda ama cagsi ku ah guusha. guushu ma ahan meel sare oo aynu gaarayno, guushu waa wadda dheer oo aynu ku soconayno. waddadaa dheer oo aynu ku soconayna dhammaanteena waxaan kala kulmaynaa dhibaatooyin iyo caqabado fara badan. in badan haddii aad weydiiso shakhsiyaadka ku socda waddada guusha sirta waddadaasi, waxay kuu sheegayaan inaad ka fogaato dhammaan dadka aan rumaysnayn in la qabto oo lagu socdo waddada guusha. waxay kuu sheegayaan inaad ka fogaato dadka muxbitiinta ah, dad keliya jabsan oo aan rumaysnayn in fashilku yahay waddada guusha. ceebkuguma ahan inaad ku guuldareysatid waxbarashadaada ama inaad ku guuldareysatid shaqadaada. inagu waxaynu nahay bashar, sifaadka basharkana midda ugu muhiimsan waa gafka. balse waxaa ceeb kugu ah inaad isdhiibto oo aad fashilkaaga isu dhiibto oo aad fashilkaaga aqbasho. waxaad ogaataa guuldaro kasta oo noloshaada la kulanto waa arrin ilaahay kuu qadaray. laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. ilaahay naf ma kalifo ilaa waxay karayso ayna awoodo mooyaane. halkan marka la joogo khiyaarka iyo doorashada adiga ayaa iska leh. inaad aqbasho oo aad isu dhiibto fashilkaaga ama inaad joogtayso isku daygaaga adigoo og in ilaahay kugu kalifin waxaadan karaynin oo awoodahaaga ka baxsan. balanteenu waa fashilka inaanan isu dhiibin oo aan horay u socono oo aan yeelano hadaf iyo yool cad oo aan doonayno inaan xaqiijino. waraahiyadan waxaa idin soo diyaariyey idina soo gudbiyey walaalkiina Cumar Maxamed. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.